mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaaguna khasaaraha badnaa ayaa maanta ka dhacay degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellada Hoose wuxuuna dagaalka ku bilowday qaraxyo qaar gawaari lagu raray khasaaraha ugu badan wuxuu gaaray al-shabaab oo weerarka ku qaaday Awdhigle oo maalmo ka hor awood looga saaray sidoo kale waxaa jira dhimasho iyo dhaawac gaaray askar ka tirsan militariga Soomaaliya iyo sidoo kale Gacal Cabdulle oo ahaa wariye ka tirsan idaacadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xogta ku heshay in al-shabaab ay dagaalka iyo qaraxyada daqiiqada ka hor ay direen nin oday ah oo gaaray halka ay joogaan askarta xoogga dalka ee Awdhigle ninka odayga ah ayaana askarta ka dalbaday in loo geeyo taliyaha ciidanka lugta Generaal Odawa balse mar la damcay in la baaro ayuu diiday rasaas lagu furay kadibna wuu qarxay oo waxaa lagu warramayaa in waxyaabaha qarxa horay ay ugu sii xirnaayeen intaas kadib waxaa goobta lagu weeraray ilaa 6 gaari oo qaraxyo ku rarnaayeen iyo sidoo kale xubno dagaal toos ah ku qaaday al-shabaab waxaa halkaasi looga dilay in ka badan 50 xubnood oo dagaalamayaashoodii ahaa sida aan xogta ku helayno iyadoona sidoo kale ay jiraan in ka badan 10 kale oo nolol lagu qabtay mid ka mid ah gawaarida qaraxyada ee al-shabaab ayaana gaaray xerada halka inta kale sida wararka aan ku xaqiijinay ay sheegayaan in banaanka xerada ciidanka militariga lagu qarxiyay gawaaridooda maamulka gobolka oo aan la xiriirnay waa kan Shabeellada Hoose waxay noo sheegeen in haatan ay xaaladdu tahay mid degan isla markaana aysan jirin wax burbur ah oo gaaray buundada degmada Awdhigle dhanka al-shabaab waxay sheegteen in ay la wareegeen degmada Awdhigle kuna dileen askar badan waxaa diyaarad gaar ah Muqdisho looga diray in ay soo qaado askarta dhaawac ah oo tiro ahaan lagu warramayo in ay ku dhawaad 10 qof yihiin iyo sidoo kale intii halkaasi ku dhimatay oo 5 qof ku dhawaad iyaguna ah marar badan ay sidaan oo kala dhacday in al-shabaab weerar rogaal celis ah ku qaadaan deegaanada laga saaro ee gobolada dalka xitaa waxaa dhacday mararka qaar inay dib ula wareegaan meel awood badan looga saaray su'aasha ayaa ah maxay tahay sababta sidaasi badi u dhacdo waxaana weydiinay Korneyl Cabdi Aadan oo ka mid ah saraakiishii hore ciidanka xoogga dalka laakiin haddii inta la baxo oo ciidan baxo oo weerar qaado oo meel qabsado oo markuu meesha qabsado kadibna la kala dhigto badanaa sidaas bay u badan tahay waxyaabaha meelaha ka dhacayo marka taas ayaa keeni karta waxayna u baahan tahay maaragtay in maaragtay focuska loo saaro qabiirada arrimahaas in lagala tasto oo baleenka ay soo dejiyaan la qaato mararka qaarkood waxaa dhici karta wixii lasoo saara ama la sheego inaanan la qaadanin oo ninka markaas meesha qofka xakumo oo iskiisa oo kale soo baxay oo ka isticmaalo ama ciidamadu inay iska kala tagaan oo magaalooyinka iyo uga soo laabtaan marka waxyaabahaas baa u baahan ismaga wallaahi marka ciidan meel fadhiyo sidiisaba haddii uu meesha iska fadhiyo oona ilaalo dheeraadana uu samaynin saxamo tiro badan oo aaggaas ka baxsanna aan la samaynin 24 saac iyo roobda joogta ee haddii aan la samaynin qofka meesha fadhiya baa loogu imaanayaa waxaana lagu mataqaanaa badbaadi karaa in sahan dheeraada ilaalo dheeraada iyo taxadir dheeraada la muujiyo ma garata dagaalkii al-shabaab looga saaray degmada Awdhigle toddobaadkii la soo dhaafay kadib waxaa halkaasi ka dhacay deegaanka Shaam oo Awdhigle u dhow dagaal kale oo lagu warramayo ama saraakiisha ciidanka xoogga dalka ay ku xaqiijiyeen in lagu dhaawacay Cali Maxamuud Raage Cali Dheere oo ahaa amaba ah afhayeenka guud ee al-shabaab waxaana sidoo kale lagu warramayaa in al-shabaab degmada Awdhigle ay u ahayd mid ka mid ah deegaanada ugu muhiimsan ee ay gacanta ku hayeen